قس صوت ولا قس صبع قس أم كرو غادي ماشي بحال gabadha waa meydkeedii dugsiga ayuu ku dhex jiraa waa dhacdo maaragta argagax leh dugsiga trabak فيرش على شغال فيرش راس ما حب ويديسو جيرو كلا طيب واحد قدام يا gaariga ambulance-ka ay saaran tahay اوكي مبوطه قلب اسبوع عدك هوري ولا وعوان الجوال السلام عليكم شنو ده ميستو او دي نيجا عمر قاطع عير بدي مش حاجه غونيت مع الله يقالوا اسمه شو سحاولي يعني استعاذهم اصل جاب امر حضرتك جاب عمر كويس منك قدومي هلا كم قلم اوكي سمعت
وسائل حافظها وأنت وأنت مركب وحافظ زمينتي أنت قبل يوم المارك ساكن في سويل سيرة صفطة سويل كالبزاري هاي جود ريال يعرف كوريسو عيد بعد البداية دول ما بيكون بتسمع لكن مركي للجلي وحلا ركين قبل يوم كافينا يوم بقضي ولا شو أيام من سنة وحكينا يدينا كهرنات وبقى يعمل كهرنات أنت تونا كيرو قلتي إلى الماضي نقول عليه قبل لكن فرق كله إنه دعاء الله لنا ما دام قولي هاي ده كم أنا دعبي كم أنا قولي حلا هاي لبو ويل قنابل أنا جوتي وكان جارة مركز سكول بقى ما دي اللي بلوجيست استعمل التشخيصية هاي كدنا وديل سميه حريقة لكن gurigeeda miyaa lagu dhex gelin gurigeeda waa qol koodii ablu xiriba marka waxa la yaab leh familka qolkan isticmaalayeen masuu istixrinay in la ogaado dib ku dhacay ma kursiya ma si kala loo dilay ma ragana ka dambeeyay cid kale ka dambeysay intii baaritaan jiro qoyska dhibka gaaran ayaga kaligooda degan mise waa laga degan qoyska waxa la joogay laba wiil oo qaraabe hooyada iyo aabaha iyo ilmaha waxa la joogay wiil qaraabe abti wiil ama adeer wiil ay wiil isticmaala joogeen wiil kamid ah iskuul jira mid kamid ah la joogo xogaa dhigaa ka cusub dhamaantaas saldhigga geeddoona meydka si ay diina lageena waxa la baaraa gabadhan habka urumatay waxaa la ogaan doonaa ma gacan oo biniaadama ku dhimatay ama markay dhimad kadib baa la haray ogaan doonaa waxaasaa la ogaan doonaa falkan familkii oo dhan aan wadnay wixii oo qaangaara oo guri jooga baa wadnay waxaan rabnaa inaan geyno oo la baaro saliis adiga la imaan doono marka dhammaantood waa la baara haddii la yidhaha markii la baaro waxaan ogaan doonaa wixii dhacay insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa cadaalad inay iska badaan sababtoo waxaan caqli ahayn guri hooyo iyo famil ay joogaan oo gabdho ka waaweyn aa joogeen sababta gabdhaha loo geystay in dhibkaan uu yahay dhib oo guryaha ka dhacay iyo dhib banaanka diima aabaha safar jiray isla noo sheegay hadduu yimid gobolada jiray maamada way shaqaysaa iyadoo meel maqneed marka dhib noocaas ku dhaca waa kulley baaritaankan waxaa lagu ogaan doonaa jilaada maanta